السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا دي سلام يا صحابتي قالي ميل كستا adduunka joogta miskiintiin yareed waxaan rajeynaa inaad caafimaad qabtaan sidan anigu caafimaad qabo hortiin ugu soo laabtay asxaabta qaaliga aad baan idinka mahadcelinaya asxaabta quruxda badan ee igu xiran fiidiyoyada daawada aad baad mahadsantiin waxaan idin wadaa warkii hore war soo dhaaf farxiyo kaba yare oo maxamed saciid biki karbaash xun si xun usoo karbaashtay ayaan idii wadaa fiidiyogeeda qayb kamida ani waxaan kala garan waa farxiyo kabeera oo hore waan taageeri jiray laakiin qofka muslimka ee shahaadanaya laa ilaaha illa allah maxamed rasuulullah leh ee maanta fanki ka baxay ee dib isu maaragtay soo qabtay ila fanku awalba mid fiican maahan wax xun buu ahaay inay maanta soo karbaashto halkay u ducayn lahayd odhan lahayd maasha allah mar haddaad fanki ka baxday dee anaguna waan kugu soo daba jirnaa halkay odhan lahayd amay maanta karbaashtay oo ay ku tilmaamtay qof lacag qaadanaya qof aan fanka ilaahay dartii aan uga bixin oo dadka kala doonaya inuu fanka ka soo baxo amba qof maaragtay lacag lagu siiyey laaluush sidoo dadka kala fanka uga saari lahaa waan ilaahay dartii aan uga bixin kale farxiyo kabeer maalin maanta ka hayn baa lagu weydiin doonaa bal fiidiyoga farxiyo kabeer oo si xun soo karbaashtay maxamed saciid biki baan raba inaad ila daawataan horta bal aad ila soo aragtaan asxaabta qaaliga farxiyo kabeer oo isku dhaxyaacday marka arintu waxay tahay inuu jiro mashruuc waxaan loo sheegay mashruuc inuu jiro sidii lagu ciribtiri lahaa fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed mashruucaas waa mashruuc lacaga lagu soo qaatay wadaadda niman Soomaaliya wadaadda ah ka shaqeeya liiri niman wadaadda oo Soomaaliya ka shaqeeya liiri fanaaniintana qofka ugu horeeyay oo loo soo adeegsado oo dhinacooda laga soo maro oo mashruuca wax ka og sida la igu sheego waa inagu beenan dhodooba ma jeceli qofka ugu horeeyay ee mashruuca madaxda ka ah oo wadaadada ku sii xiran inuu yahay abtiga Axmed Biif mashruuca madaxda ka ah oo wadaadada ku sii xiran inuu yahay abtiga Axmed Biif alla ii sheegay adigana lagugu tuujiyay oo sida lagugu qaaday waxa waliba la igugu daray fanaankii inta mashruuca loo sheego uu ka gadmo waxa lagu xujeynayaa inuu fanaaniin kale soo tashkiil asxaabta qaaliga fiidiyoga waa ila soo wada daawateen waliba qaybtan kale way aflagaadinaysaa waliba waxay leedahay adigoon waxba soo baran adigoon waxba aqoonsi wax noogu sheegi kartaa ma ogaan kartid qofka inuu quraan yaqaano inuu wax soo bartay oo shaydaan markaa ka faa'iideysto oo fankii gale ma ogaan kartid farxiyo kabeera laakiin waxa lagaaga baahnaa inaad tiraahdo walaa anaguna waan idinku daba xignaa fankii anaguna waan ka baxaynaa noo soo duceey laakiin waa isku dhaxyaacday saasina ma fiicna maxamed saciid biki iyo dadkii fanka ka baxayna inaad karbaashto waa laga qurux badan yahay iska cibaadayso qof weyn baa tahay shaydaanka iska naar asxaabta igu xirana waxaan leeyahay xaqiina komanka fikirkiina igula wadaaga hadii karna isku aragtinahay farxiyo kabeer oo isku dhaxyaacday waxaan wax loo dul qaadan kara ma wax lagu taageeri kara ma aha dadkii fanka ka baxay halka u ducayn lahayd bay isku dhaxyaacday bal qaybteeda kale ayaan idinkaga tagayaa aad baan idin salaamayta fiidiyoga waxay ku kulmi doono bal qaybta kalena sii daawo farxiyo kabeer ilaahay ka cabso shaydaanka iska naar علشان تشكيل انت هذا سائد واي عم بيفا برونو صوت ضهايب او دور سنه عيلش بيها ku xareysna oo wax baraayay oo maanta labado xadiis noo sheegi karo adigu adoo xabad aayad quraan aan ii sheegi karin aad maanta waxay ku celceliyay fanki hoog buu ahaa soo baxay ilaa shaqo laga rabaa waa lagu soo xujeeyay saan dareemayo mashruuca beginning waa idin sheegay mashruuca qaadashadiisaba waxay tahay hadda lacag rabto fanaaniinta soo tashkiili fanaaniinta soo dub laakiin ina qarsato ma aha anagoo kula ogaad noo sheegi lahayd lacaga jirto soo yaa leena dhiilahayd markaas ugu lama yaabeen moogta marka walaalkay bikayo yaaba heli karaba toobadkeen fanki iska daa aad umadaasi ta kulansiiso caawa labada inta iska heshay israacdo ee dambi kugu filan ba hadii uu basi kala xataa u ahaa waayay dambi oo qiil kasta loo raadsho fanka oo xataa muusiga la iska dhaafo leeyahay muusiguna waa iska qurxinaysa la iska daayo dadka la isu keeno dhibka kaaga imaan kara marka waxay isku sameeyaan dambi noogu